wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka, wasiirka amniga gudaha, xildhibaanada labada gole iyo golaha wasiirada qaranka, odayaasha dhaqanka iyo duubabka galmudug, culimaadudiinka, ururada bulshada, saraakiisha ciidamada qalabka sida iyo ciidamada amisom, saxaafadda, marti sharafta iyo dhammaan ka soo qaybgalayaasha. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. salaanka bacdi waxaan awalan mahadcelinayaa alla subxaanahu wa tacaala, bacdi waxaan u mahadcelinayaa dhammaan xildhibaanada dowlad goboleedka galmudug, kuwii ii codeeyey iyo kuwaan ii codeynba ee kalsoonida ii siiyey inaan hogaamiyo galmudug 4 sano ee soo socda. sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa odayaasha dhaqanka ee saldhigga iyo dhismaha u ahaa soo bixitaanka iyo dhismaha baarlamaankii labaad ee dowlad goboleedka galmudug. waxaan u mahadcelinayaa wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka oo gacanta ku haysay muddo dheer hawshaa muhiimka ah. waxaan u mahadcelinayaa wasaaradda amniga gudaha oo si weyn runtii amniga u soo gaarsiisay ama gacanta ugu haysay sidoo kale wakhtigii dheeraa ee laga howlgalayay galmudug. waxaan u mahadcelinayaa madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka galmudug walaalkay axmed ducaale geelle xaaf. waxaan u mahadcelinayaa walaalkay sheekh maxamed shaakir iyo ahlu sunna wal jamaaca oo qayb ka soo qaatay. dhammaan bulshada reer galmudug ee ka soo shaqaysay geedi socodka daraha geedi socodka iyo dhismaha dowlad goboleedka galmudug ee maanta soo gaartay guushaan, dhammaantii waxaan leeyahay waa mahadsantihiin. guushii aad u socoteen waa soo gaarteen. mudane guddoomiye xildhibaanada sharafta leh, waxay ii tahay sharaf weyn in la ii doorto hogaaminta dowlad goboleedka galmudug 4 sano ee soo socota, taas oo mas-uuliyad aad u weyn ah oo aan rajaynayo inaad ugu caawisaan uguna garab istaagtaan gudashada waajibaadka culus. anigoo khudbadayda rasmiga ah dib u dhigan doona, haddana waxaan rabaa inaan dhowro dhowr qodob isdul taago oo aan isleeyahay waxay maanta u tahay munaasabadan muhiim. waxaan ka shaqayn doonaa midnimada iyo horumarka reer galmudug guud ahaan sida ku cad barnaamijkayga siyaasadeed. waxaan horseedi doonaa dib u heshiisiin bulsho iyo mid siyaasadeed oo gaarta guri walba iyo goob walba oo galmudug ka mid a. waxaan ugu tegi doonaa goobtiisa ama gurigiisa ama meel kasta uu ku sugan yahay tabasho kasta oo siyaasadeed iyo mid bulsho oo galmudug dhexdeeda ka jirta. dhammaan reer galmudug waxaan ugu baaqayaa wixii tabasho ah ee dhexdeenna ka jira wada hadal inaan ku dhammaysanno sidii ay qabto shareecada islaamku, dhaqanka wanaagsanna uu qabo reer galmudug danta ay ku jirto. waxaan ka shaqayn doonaa galmudug karti u leh inay u adeegto bulshada reer galmudug, xiriir dhowna la leh dowlad goboleedyada dalka ka jira iyo dowladda federaalka soomaaliya. waxaana niyad gaar ah dowladdu sii doontaa sugidda amniga iyo gudashada dhammaan waajibaadyadii na hor yaallay iyo kuwii aan ku sheegnay oo aan ku soo sheegay barnaamijkayga siyaasadeed horey u soo bandhigay. waxaan u daysan doonaa khudbada inta ka dheer intaas maalinteeda iyo wakhtigeeda ku habboon. waxaan mar labaad leeyahay reer galmudug meelay joogaanba walaalayaal iscafiya, nacafiya, aan isu nimaadno, aan tashanno, aan dhammaysanno wixii dhexdeena ka jira.